boqorkii isugu yeedhi jiray kii Ilaahay doortay ahaana hogaamiyaha boqortooyadii Abyssinia Haile Selassie oo ugu cadhaysan dhacdadii wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya kaga sameeyay qaramada midoobay ayaa loogu imanayaa qasrigiisii gobolka Shawa ee dalka Itoobiya. dhammaan madaxda uu soo dhaweynayo Haile Selassie madaxa ayay u ruuxayaan, waana dhaqan boqorka lagu salaamiyay iyadoo loo sujuudayo. Umar Carte Qaalib ayaa Afrikaan badan oo forforsanaya iska dhaafaya, waxaana la weydiinayaa waa maxay ujeedka aan boqorkii Ilaahay doortay aad ugu sujuudi weyday salaan ahaan. Kumu ahaa siyaasigii Soomaaliya ku daray ururka Jaamacadda Carabta. daawada ku soo dhawow barnaamij aynu ku eegi doono siyaasigii ururka Jaamacadda Carabta ku daray Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed ee uu hoggaankeeda hayay Jaale Maxamed Siyaad Barre sanadkii 1970-dii. waa siyaasigii ka diiday inuu salaan foorar siyaasi iyo boqorkii Itoobiya ee lagu magacaabi jiray kii Ilaahay doortay. Umar Carte Qaalib oo ka hadlaya shirweynihii ururka Jimciyadda Guud ee Qaramada Midoobay ayaa waxaa sare kacay intuu isla walbabacay wakiilka gambadhka Itoobiya leedahay ugu yururay Qaramada Midoobay. waxaa fadhi degdeg ah yeeshay sanadkii 1971 ururka isku magacaaba Ummadaha Midoobay, waxaana loo yeedhay labada barbar waa Itoobiya iyo Soomaaliya ee labadii nin ee kala matalayay. waxay kala ahaayeen wasiirkii arrimaha dibadda Itoobiya xilligaasi Katama Yufre iyo wasiirkii arrimaha dibadda Soomaaliya Umar Carte Qaalib. markan waxaa laga hadlayaa ciriqa dhuleed ee Soomaaliya iyo Itoobiya oo kacsan, kaasoo ilaa hadda oo aynu joogno ma naqataysan. waxaa kulanka shirka gudihiisa la soo jeediyey badkana la soo dhigay inay dejiyaan arrinta labada dhinac isku hayaan. waxa ugu horreyn hadalka holladay Umar Carte Qaalib, waxaanu sheegay in dhulka ka maqan Soomaalidu baadi ku yahay dalka Itoobiya cidda bixisayna tahay qaar fadhiya una bowdheer golaha Jimciyadda Guud ee Qaramada Midoobay. isla jeerka la dusiyeyna aanay Soomaalidu dowlad lahayn oo ay ku jirtay gacan gumaysi, sidoo kalena xariiqa la kala mariyey qaydadka loo kala dhaxaysiya ay yihiin been abuur ummadan lagu hambagayo. wuxuu sheegay in golaha looga fadhiyo ayna ka sugayso Soomaalidu hadduu sharci ugu adeegayo ummadaha loona siman yahay in loo soo celiyo dhulkeeda, haddii taa la diidana loo dhaafi doono wixii kale ee laga maarmi waayo. waxaa hadalkii qaatay wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya Katama Yufre oo sheegay in dhulka Soomaalidu doonaysa yahay dal u dhashay dalka Itoobiya oo ay axla duugtay, islamarkaana Ingiriiska iyo boqortooyadii Abyssinia uga heshiiyeen si waafaqsan xeerarka carreedeg. Katama Yufre waa wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya, wuxuu sheegay in ciidan markii loo gacan geliyey aanay cidiba deganayn oo uu ahaa kaymo cidla waaqla. haddii tan laga tegi waayana Itoobiya ayba leedahay dalka maanta Soomaali ku nooshahay, islamarkaana ay Itoobiyaanku is ururiyeen weliba. halkaa markay marayso ayuu Umar Carte Qaalib halhaleel u qabsanaya mikrofoonka. hadalkii wuu bilaabay, balse waxaa ka soo dhex galay Katama Yufre waa wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya. wuu aamusay danjire Umar Carte Qaalib, wuxuuna u jeediyey xubnihii fadhiyey in laga qabto ninkan hadalka ka dhex hordaya, islamarkaana laga joojo wiilkan Itoobiyaanka ah ee goondhabada ku wada hadalkiisa. hase yeeshee waa laga ciga taagleeyey. mar kale ayaa la sheegay in sidii oo kale oo dhacday, waxaana soo galay Katama Yufre oo laabta iska garaacaya isagoo leh waxaan ahay libaaxii Afrika. halkaa markay marayso danjire Umar Carte Qaalib wuxuu xasuustay mahmahdii Soomaaliyeed ee odhan jirtay nimaan shantaasi kaa reebin sharci kaama reebo. wuxuu ku dhuftay Katama Yufre 5 farood iyo calaacal. taasina waxay keentay in wasiirkii arrimaha dibadda Itoobiya loola cararo cusbitaalka magaalada New York. waxaa gebi ahaanba la xidhay golihii shirkii Jimciyadda Guud ee Qaramada Midoobay. wasiirkii arrimaha dibadda Soomaaliyana wuu iskaga baxay isagoo toos u tegay gegida diyaaradaha ee magaalada New York si uu ugu dhoofo dalkiisa. waxaa la isweydiinayaa maxaa keenay dhaawaca Katama Yufre. dhaawaca wasiirka Itoobiyaanka iyo dhulka uu ku duulay waxaa sababtay baa la yidhi awoodda jireed ee siyaasi Umar Carte Qaalib ee xilligaasi baaxad ahaan iyo xoogga Rabbi ku manaystay awgeed. waxaa arrinta aad wax uga qoray warbaahinta Maraykanka iyagoo ka hadhi waayey sida uu dhulka ugu dhacay wasiirkii Itoobiyaanka ee ku faanayay libaaxa kaynta iyo xayawaanka ugu khatarta badan bahda habar dugaag. waxay qaadaadhigayeen labada nin ee isku awood ahaa iyo qaabka loo kala adkaaday, taasoo tusaale loogu soo qaatay xataa markii dagaalku ka dhex qarxay Itoobiya iyo Soomaaliya oo wariyaashu qorayeen.
sidii wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya dhulka u jiiday wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya Katima Yufre ayaa ciidamada Soomaaliyeed u liqeen ciidamada Itoobiya. mar kale wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya wuxuu ka qayb galay shirkii ururka jaamacadda Carabta ee sanadkii 1974 kalfadhiga kulanka waxaa loo soo jeediyay in jamhuuriyaddii Soomaalida lagu daro jaamacadda isla markaana ay si rasmi ah wambar ama kursi ugu yeelato. dalal badan ayaa ka xaglinayay isla markaana ka soo horjeestay in Soomaaliya cagta soo geliso ururka jaamacadda Carabta waxaana ka mid ahaa dalka Suudaan. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Suudaan Mansuur Laahid ayaa muraara dilaacay wuxuuna isla sare taagay isagoo calaysan sababta Soomaaliya loogu soo darayo ururka ee ay halkan u joogto. wuxuu yiri waxaan weydiinayaa martida sharafta leh iyo gudoomiyaha jaamacadda Carabta inaan isweydiino ileen meeshu xiragaal ma aha ujeedka idinkoo wada og inaanay Soomaalidu Carab ahayn sidoo kalena aanay ku hadlin luqadda Carabta misana loo doonayo inay inaga mid noqdaan ururkeena loogu soo darsamaan xubinna loo siiyo miyaanay taasi ka dhignayn buu yiri inagoo dalka Nigeria ku soo darna ururka jaamacadda Carabta. wuu fadhiistay wasiirka arrimaha dibadda dalka Suudaan waxaana weydaartay oo minbarka istaagay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Umar Carte Qaalib wuxuuna salaamay ragga madasha fadhiyay isagoo yiri martida sharfan ee goobta joogta waxaan weydiinayaa aniga iyo wasiirka arrimaha dibadda Suudaan ee halkan ka lahaa Soomaaliya ayaan lagu darin ururka jaamacadda Carabta oo ma aha Carab bal anigoon wax ka sheegin dalka Suudaan oo xubinka ururka isla markaana aan meel uga dhicin dadka reer Suudaan oo muslin ah meel kale inagoo aan u kicin labadayada kaayaga Carab weeg. gebi ahaanba xubnihii shirka joogay ayaa sacab qosol iyo sawaxan or ah isku daray taasina waxay keentay in wasiirka arrimaha dibadda Suudaan halhaleel uga boodo albaabka isagoo ka cadhooday hadalka lagu weeraray muuqiisa midabkiisa iyo dalkiisa. ولقد كان مفترض أن يتم هذا الانضمام منذ وقت طويل تحقيقا لرغبات شعبنا الذي ظل ينادي بها احتفاء بانضمامنا إلى الجامعة بالنيابة عن إخوانهم المندوبين وعن البلدان الشقيقة التي يمثلونها. ugu dambeyn waxaa afaafka hore ee ay ka babanayaan calamada iyo astaamaha dalalka ka mid ah ururka jaamacadda Carabta si rasmi ah looga taagay calankii jamhuuriyaddii Soomaalida sidaana waxay kaga mid noqotay xubin joogta ah oo ururka ka tirsan iyadoo ahayd dalkii ugu dambeeyay xilligaasi ku biira. ugu dambeyntii daawada shirkii ururka midowga Afrika ee lagu qabtay magaalada Muqdisho bishii June gugii 1974 waxaa ka soo qayb galay dhammaan madaxweynayaasha Afrika. shirka waxaa loogu tartamayay xogayaha guud ee ururka Afrika jagada waxaa isku soo taagay wasiirada arrimaha dibadda Umar Carte Qaalib ee Soomaaliya, William Ekati Cameroon, Rubiya Banda dalka Zambia. ololaha murashaxiinta waxaa kala hogaaminayay madaxweynaha Nigeria Howle Bomadin oo u ololeynaya Umar Carte Qaalib iyo madaxweynaha Tanzania Julius Nyerere oo isaguna u ololeynayay murashaxa dalka Zambia. khudbadihii madaxda kadib markii labaad ee shirka ayaa cod bixintii bilaabantay waxaana wareegii koowaad ku hadhay William Eteki oo ka socday dalka Cameroon. wareegii labaad waxaa 3 cod ku hogaaminayay Umar Carte Qaalib balse ma uu kasban 3 meelood meel 2 cod si uu guushu raacdo. muddo 3 saacadood oo ay socotay cod bixintii mar walba waxaa 3 cod ku horeynayay Umar Carte Qaalib ilaa 12 habeenimo markastoo cod bixinta lagu celiyo natiijadu waxba iskama aysan bedelin 3 cod ayaanu ku hogaaminaya Umar Carte Qaalib. Umar Carte Qaalib waxaa codka siinayay dalalka Carabta ee waqooyiga dalka Afrika halka Rubiya Banda ay codka siinayeen dalalka aan hanti wadaag ahayn ee qaaradda Afrika kuwaasoo ku talagalkoodu ahaa inay guusha ka ilaaliyaan Umar Carte Qaalib si doorashada dib loo dhigo xilkaana uu sii hayo xogayaha guud ee xilka ka sii degaya dalka Cameroon u dhashay. markii la isla mari waayay natiijadiina waxba iska bedeli waayeen 12 habeenimo ayuu madaxweyne Jaale Maxamed Siyaad Barre soo jeediyay in murashaxii Cameroon Master William Eteki ee wareegii koowaad lagu reebay loo magacaabo xogayaha guud ururka midowga Afrika. madaxweynayaashii Afrika sacab ayay ku soo dhaweeyeen soo jeedintaasi labada murashax kalena ku aqbaleen. Umar Carte Qaalib dowladii Soomaaliya wuxuu intii u dhaxaysay sanadihii 1969 ilaa 1977 wasiirka arrimaha dibadda
waxaa kale oo 1972 noqday madaxweynihii golaha guud ee qaramada midoobay. Cumar Carte Qaalib waxa uu sanadkii 1972 kaalin dhexdhexaad ka qaatay labada dal ee Uganda iyo Tanzania ee u dhaxeeyay khilaaf xuduudeed, isla markaana ay ka gaabsadeen inta badan dalalka Afrika inay door ku yeeshaan. waxaanu heshiiska dhexdhexaadintu ka koobnaa 5 qodob oo ay dalalka Uganda iyo Tanzania kaga baaqdeen saxaxana ku duugeen. 5 qodob ee Cumar Carte Qaalib ka saxaxay madaxda Uganda iyo Tanzania waxaa lagaga baaqday dagaal sokeeye. daawadayaal barnaamijkani waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Aadan Dirir. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.